بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalay waxaan rabaa dhowr mawduuc inaan ka hadlo. Dhowr gabdhood su'aalo isu weydiiyey ayaan rabaa inaan dhowr mawduucan ka dhigo oo halkan kaga soo jawaabo. Lambarka gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday cunto cunaayo oo jiir ku dhex jira dooli. Jiirka oo ku dhex jira cuntadaada mise jikadaada jooga arrin wanaagsan maaha. Riyadan haddayba wanaagsaneen fasirkeeda muhiim maaha, laakiin haddana shar maahan. waa digniin. Dad waxaa jira cadaabo ah, irsaaqadaada ka xun, iska ilaali, rabbina shartooda ka magan gal. Waa intaasoo keliya insha Allah. Gabar kale waxay tiri guri duug ahaa oo la dayactirayo ayaan ku riyooday, daaqadihiisa, albaabyadiisa yacni la qurxinayo, dabaq laga dhigayo. Aragtida guri duug ahaa la hagaajinayo waxay tilmaamaysaa xoolo badan, waxay tilmaamaysaa dadkaan guursanin guur, waxay tilmaamaysaa qofka sixirka la xanuunsanaa inuu sixirka ka afjarmayo xanuunkiisa oo furmaayo. yacni micnooyin badan ayay tilmaamaysaa. haddaad u baahataan muuqaal u qaasaan ka samayn doonaa, laakiin waa riyo wada fiican. guriga dayactirkiisa mise guriga la cusboonaysiinayo. kabacdina waxay tiri bariis iyo hilib munaasabad ayaa jirta. ficlan taa waxay tilmaamaysaa munaasabad farxad leh gurigiina kusoo biiri doonto. haddaad gabar tahayna guur, haddii lagu qabana arrimo badan oo wanaagsan gurigaaga inay kusoo biirayaan, wallaahu yaclam. gabar kale waxay tiri digsi ayaan ku riyooday, digsi iyo furkiisa iyo cuntada sideedaba waa khayraad badan, waa arsaaqad. digsiga haddaan idhaahno waan ka hadlaya, waxaa laga yaaba ilaa beri inaan ka hadlo, waayo micnooyin aad u badan oo tilmaamaya. micnooyinkan way wada wanaagsan yihiin. digsiga wuxuu tilmaamaya hadduu qof khilaaf idinka dhexeeya heshiis. wuxuu kaloo tilmaamaya munaasabad wanaagsan oo casuumaadii waxaasoo kala oo laakiin arrin farxad leh wadato, mise doonaysa hadday gabadha la qabin, mise guur, mise ilmo dhalanayo, yacni lagu farxayo, loo duceynayo, waxay doontaba ahaato munaasabad wanaagsan. digsiga sidoo kale wuxuu tilmaamaya qadarin, dadku qadarinaya adiga, qof idinka dhexeyso qadarin weyn, mise asiga xaggiisa ka helaysid. sidaa idin sheeg walaal, haddaan digsiga waa ka hadlaa dhaha micnooyin badan ayuu leeyahay, laakiin insha Allah waxaan isku daya inta micno muhiimka ah aniga haddaan u arko muhiim inaan soo koobo. hadduu qofku ku riyooda digsi cunto ku jirto, waxay tilmaamaysaa guuleysi noloshiisa, waxyaabo badan u hergalayo mise u hagaagayo. hadduu digsiga cuntada asoo ku dhex cunayo, digsiga cunto ku jirta, qofka asoo ku dhex cunayo ku riyoodan, waxay tilmaamaysaa arsaaqad badan iyo kheyr iyo barako. qof colaad idinka dhexeysa haddaa ku riyooto asoo digsi kuu keenayo, taa macnaheed waxay tilmaamaysaa heshiis insha Allah. mawduuca digsiga halkaasaan kusoo koobay. haddaad u baahataana muuqaal u qaasa ayaan ka samayn doonaa, waayo micnooyin aad u badan ayuu leeyahay. gabar kale waxay tiri wiil xiriir naga dhexeeyey ayaan ku riyooday asigoo cadar isiinayo. siismada cadarka waa arrin wanaagsan, laga yaaba inuu siiradaada si qurux badan usoo magac qaadayo, yacni markuu kaa sheekeynayo mise uu qof kale yacni magacaaga uu la soo qaaday inuu ku dhahayo waa gabar edeb leh, waa gabar asturoon, waa gabar yacni uu ku ammaanayo, li'aano waa maxay ahayd sumcad wanaagsan cadarka gabadhaan la qabin. sidoo kale wuxuu tilmaamaya guur nin wanaagsan, yacni asiga haddii matalan hadda qabanqaabo inaad isku soo noqotaan ay jirto, rubama asiga ilaa calafkuugu dara uu ninkuu noqon doono qof wanaagsan. haddayn arrintaa jirin, nin kaloo ka wanaagsan insha Allah, wallaahu yaclam. gabadhaa waxay tiri habeen aan ku duceystay guur ayaa waxaan ku riyooday tiri nin aad u qurux badan. ninka quruxda badan waxay tilmaamaysaa ficlan guur, inuu rabbi kuugu bishaareynayo inaad nolosha sidaa ku dhamaysan doonin kelinimo. waxaa kaloo ku jiray tiri riyada laba gabdhood oo aad u qurux badan. marba haddaad gabar qurux badan aad riyo ku aragtid, waa adduun aad kuugu qurux badnaanayo. hataa haddii hadda xaaladahaaga aan isku toosnayn, laakiin adduunka inuu kuu qurux badnaan doono, inuu kheyr badan kuu soo socdo. waayo gabadha quruxda badan waa adduunka u qurux badan insha Allah.
ha ahaato ilmo aad dhalaysid, ha ahaado noloshaada isbedelayso, wallaahu yaclam. Muuqaalka wax yar ayaa ka dhiman intaan u galin qofka ugu dambeeyana u jawaabin. Walaalayaal waxaa idinka codsanaya inaad like noo saartaan oodna noo shaargaraysaan, asxaabtiina aad la wadaagtaan. waxaa kaloo idinka mahad celinaya aad ayaa u dadaaleysaan. dad badan ayaa igu soo biiraya beryaha dambe. 200 ayaa nooga harsan kunkii, insha Allah na gaarsiiya. mideeda kale walaalayaal, qofka maanta aan soo qaadanin riyadiisa, insha Allah mawduucyada kala soo socda ayaan kusoo qaadan doonaa, laakiin isoo xasuusiya. waan soo koobi doonaa. gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo salaad u socdo, salaaday tahayna ma aqaano, isku dayaay oo weysaysanay. dhowr jeer ayaa riyadaas igu soo noqnoqotay. salaad ayaan isku diyaarinaya, waana weysaysanaya. weysada micnooyin badan ayay tilmaamaysaa. janankeyga hore waa kaga soo hadlay, laakiin haddee riyadaa kuugu soo noqnoqotay adigoo salaa usii socda ku riyoonaysid oo kabacdina yani ka horena aad weysaysanaysid, haddee arrin jirto istiqaaro ka tuko, rabbina tala saaro. arrin aad rabtid inaad ku dhaqaaqdid hadday jirto. haddii kale aan arrintaas ahayn, inkastoo inaad soo faahfaahisid aan jeclaan lahaa, micnooyin badan ayay tilmaamaysaa weysada oo wada wanaagsan, yacni micno xun kuma jirto weysada. gabar kale waxay tiri riyadeed aaday u dhaartaa. waxay tiri anagoo madarso joogna, gabar saaxiibaday la socoto, gabadhii hadal xun ay ku hadlaysaa, macalinkii dilay. riyooyinka markay sidaas oo kale yihiin, mise waxa axaadiisi nafsi, mise waa min ashayaadiin, wallaahu yaclam. riyada noocan oo kale ma fasiri karo, waxaan ka cabsanaya inuu dembi iga soo gaaro, waayo ma fahansani siday riyadu u dhacayso. sidaa darteed iga raalli ahow. walaalayaal halkaasaan kusoo koobaya. laag noo saara, noona shaargareeya, la wadaaga asxaabtiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.